nin ayaa diyaarad yar ku weeraray naadi habeenkii lagu caweeyo oo raacsan airport madani ah oo ku yaala gudaha Botswana. Duuliyahan waxa uu u shaqeynayaa shirkadda duulimaadyada Kalahari. Waxa uu naftiisa u gooyay wado aan caadi ahayn kadib markii xaaskiisa ay iskhilaafeen iyagoo goob ku wada caweynaya. Mas'uul arintan ka hadlay ayaa sheegay in duuliyahani uu diyaarad nooceedu uu yahay King Airport 200 oo ku weeraray dhismaha naadi habeenkii lagu caweeyo. Waxa uu qorsheynayay inuu xaaskiisa dilo iyo dadka naadiga iska leh naftiisana uu gooyo. Qof dhacdadan goob jooga waxa ayaa sheegay intaanu tilaabadiisan fulinkoor uu saaxiibadiisa la soo hadlay oo uu weydiiyay halka uu joogo iyo dhankay xaaskiisa ku sugan tahay. Saaxiibkii waa uu fahmay inuu arintan qorsheynayo. Dhismihii uu ku sugnaa waa uu ka dhaqaaqay daqiiqad ka hor inta aanu diyaarad ku soo weerarin. Si kastaba dhacdadan ayaa waxa ku nafwaayay duuliyihii naftiisa haligay ee qorsheynayay in uu dilo xaaskiisa iyo dad kale oo khilaaf uu kala dhaxeeyay.